halkani waxaan u joognaa geeridii Guddoomiyaha Barlamaanka Djibouti Idris Arnaoud Cali. munaasabadan murugaysan waxaan tacsiid raali u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Geelle iyo ehelkii ka hadhay marxuumka. sidaan u garanayno Idris Arnaoud faraaq weyn ayuu kaga tagay bahda siyaasadda Djibouti, isagoo siyaasadda ku bilaabay isagoo ardaya Faransiisa, urur oo ka dhisay ardayda ay u dhan tahay reer Djibouti. marka waxaana eebbe uga rajaynaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo, ehelkiisina samir iyo imaan ilaahay inuu ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. waxaan halkan tacsi jiraan yara uga dirayaa dadka adduunka ku nool ummadaan ugu jecelahay, dadweynaha iyo madaxweynaha iyo shacabka iyo dowladda Djibouti, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo caa'iladii uu ka baxay walaalkay Idris Arnaoud Cali, guddoomiyihii Barlamaanka dowladda Djibouti, oo ahaa munaadil weyn oo ka qayb qaatay basamaadna wax la taaban karo kaga tegay dalka Djibouti. muqdisho xalay iyo habeen hore iyo habeen yani muddo intaas tacsiyadu way socotay. waa aad baa loo tiiraanyooday lannahu nin wuxuu ahaa la jecel yahay oo fi lmakaan almunaasib jooguu ahaa. labada shacab Djibouti iyo Soomaaliya waa laba shacab oo walaala fi kulli shay. laba shacab oo intay isxushan yihiin isxushan ma garanayo. saas darteed faraxa iyo taraxaba way qaybsadaan. ilaahay Idris Arnaoud Cali raxmadiisa waasicada ah ku manaysto, jannatul firdaws guri allah uga dhigo. isagaa tii rumaa tagay, annaga meeshii banaanka ahayd joogna. inkastoo ilaahay wuxuu sameeyaa tacqiib aan lagu samayn karin. waxaa jirta mathal carbeed oo leh alxamdu lilahi aladi laa yuxmadu calaa makruuhin siwaah. yani waxaan uu sameeyey inuu Idriis naga dilo fii waqtin aada loogu baahnaa oo ummaddu rabtay, shacabka Djibouti rabay, kan Soomaaliyeed rabay, Africa iyo igaad rabeen. nin nashid ah oo halgamaa ah ayuu ahaa, ayuu haddana geeriyoodo. ilaahay ilaha baa qaatay. ina lilahi ma acطaa walahu ma akhad walaa mucaqiba lixukmi. marka waxaan aada ugu tacsaynayaa mar kale caruurtii iyo xaaskii uu ka tegay iyo qaraabadiisii dhoweyd, asdiqadiisii intii tiqiinay oo dhan, iyo dowladda Djibouti duuduub ahaan, gaar ahaan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta oo dhan iyo shacabka. aad iyo aad baad yaan u mahadsantihin. asalaamu calaykum. waxaanu aada uga tiraanyoonay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid walaalkeen. allahu naxariisto, naxariistii eebbe korkiisa ha ahaato, Idris Arnaoud Cali oo ahaa madaxa baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti. geeridaas tiraanyada leh ee ku timid walaalkeen Idris Arnaoud Cali oo ahaa madaxweynaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti ama sida loo yaqaano afhayeenka
baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti. waxaanu leenahay eebbe ha u naxariisto, qoyskii uu ka baxayna sabri iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo. wadar ahaan shacabka jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaanu leenahay samri iyo iimaan eebbe ha idinka siiyo. idaylkeenba xagga eebbe ayaanu u noqonaynaa, isaga ayaa ina leh. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. geeridu waa xaq, qof kastana jidkaas ayuunbaa sugaya geediga nololeed marka laga hadlo. laakiin bani aadamka waxaa lagu qiimeeyaa wixii uu qabtay. marka haddii aanu nahay jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia, safiirka u fadhiya dalkan Masar, waxaanu aaminsannahay in afhayeenkii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti kaalin weyn ka qaatay isku soo dhoweynta iyo wanaajinta xidhiidhka labada dal, balse uu kaalin weyn ku lahaa bahwadaagta IGAD xidhiidh wanaagsan inuu ka dhexeeyo. waxaan u rajaynaynaa jannadii inuu eebbe ku hubsado, qoyskii uu ka baxayna sabri iimaan ilaahay ka siiyo. wadar ahaan shacabka reer Djibouti iyo madaxweynaha sidaan hore u sheegayna iyagana sabri iimaan eebbe ha ka siiyo. eebbe xaggiisa ayaynu u noqonaynaa, isaga ayaa ina leh. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Tacsida, tafadhal.